الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qolade salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yiraahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tagaya deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tagaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa la yiri salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ciideeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay hadday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyay hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaaya noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxee ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaala saddex baa aniga la jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa la jeclaysiiyey atiib waxa wixii uduge udgoon والنساء يا هوينكنا ولا جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanahay saad ku heshay adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa wuxuu yiri kaabatu min ajli as-salati li 20 sana wa tan'amtu biha 20 sana buu yiri salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaaro 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyada salaada aad u tukato noo sheeg baa laga yiri wuxuu niman yahoon safka markaan galab u imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsada qalbigayga yawma yaqumu an-naasu li rabbil alamin waxaan ka soo qaadaa safkan masjidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbudu allaha ka'annaka taraah فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابداسي واحد أديكو أدو جيدود أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقاكو أركايا وحولي مركا وحان كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدق إيجي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري وحسابتا لقوبيدا صدقا هدانا كي بدحدي إيجي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaata aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baa salaadeeda ku dhameystaa buu yiri ay raisli ninkuna dareenka ku dhameystaa masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعت دي الله بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرا صفقة هوري
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaabnu midhaan walla waa ku darray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبي قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يدي رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبي سجع العذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يدي رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asaga dhimashada u diyaar man minna la yakraha al-maut dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu leeyahay lacag haddaad hayso mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي مجعله من الربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jirka la sheegay inay keliya tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك هدي هجاك جرك ودم با هجاجي هدي بعناتنا جرك ودم با بعنان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك هجاجو قلبك معوكو هجاجيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبناها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عصيان كيسا كدعي مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بوكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ميشي الربان بي آذيان دقالهيني ميشي الربنا كو بحينينا هذا الكيني ميشي وحن دوناكو هاللينا تحن حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنو من قسل أفرت سنة ما كفتمن وحن سوغاري رق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لجوغا عن اسكم مليني إن أنا نقتوغا عن اسكم مليني وإمامك وخير التابعين ويان وعالمك تابعين توقع علم بدنا ويان وحا هذا الكالي صد سنة ما قسل بويري أفرت سنة هذا الكفتما إيقا مسوبحن وحن سوغاري أقوام مركان لجوغا نكتو دا جوغانا أنا عن اسكم مليني إن أنا هيتوب وحسن البصري نيكا صداقي هدي جرك حبنتا هدي هاقاكتو عربكاغو هاقاقي مقلكاغو هاقاقي هذلكاغو توصي فعلكاغو توصي علوشاada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raali ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمركيس إلالي أذيك إلهي باكو إلالين
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baa anu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiis waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi اlardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahee maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaa nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyo kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay